qaybtiisii lacagta. Yani maalintii bishii waxa uu ka qaataa lagu dhahay estimated monthly earning. Bishii wuxuu ka qaataa ama ka helaa waa intaan qiyaas ha u malaynin mid xaqiiqda ah, waayo way ka badan kartaa wayna ka yaraan kartaa. Marka waxaad qiyaas ahaan ay qaataa 596 ilaa 9,500. marka 9,500 ay ka dhigan tahay. marka qiyaastaas ayuu qaataa lacag ahaan. Assalaamu calaykum guys, kusoo dhawaada muuqaal cusub oo aynu ku hadlayno sida YouTubers-ka caanka ee Soomaalida dhexdeeda caanka ka ah lacagta ay ka sameeyaan inta ay ka qaataan ama social media dadka caanka ah ee Soomaalida. Marka maanta waxaan la eegaynaa YouTuber-ka caanka ee Ogaansho. Marka xogtan kama turjumaysa lacagta dhabta uu ka sameeyo in ay tahay lacagta aan soo bandhigi doono, xaqiiqda soo bandhigi doono ama inay ka yartahayba, laakiin waa mid dhexdhexaad ah, laakiin xogtan kaliya u qaado mid aqoon ah. marka sad yani ogaatid qaabka ay lacag uga sameeyaan waxa soo galaysa marka browser-kaaga, yani hadduu yahay internet browser, Samsung internet ama Chrome-ka. marka mid ka rabtay ayaa soo furanaysaa, deetana qaybta search-ka ayaa waxaad ku qoraysaa social blade, kadibna search ayaa dhahaysaa. kadibna waxaa kusoo baxaya linkiga ugu hore, qaabkan kusoo baxaya. marka linkiga ugu horeeyo ayaad ku dhufanaysaa. marka kadibna halkan qaybta search-ka ayaad waxaad ku qoraysaa search-ka ayaad waxaad ku qoraysaa qaybtaas search-ka ayaad ku qoraysaa magaca aad rabtid. marka hadda waxaan ku qorayaa Ogaansho. kadibna go ayaan dhahayaa. saad u jeedaa marka halkaa waxaa ii soo baxday sawirka Ogaansho iyo qoraalkiisii inta subscribe u haysto, inta view haysto iyo inta muuqaal uu soo upload gareeyba. marka waynu ku dhufanaynaa sawirka, kadibna hadda waxaa inoo soo baxaya marka xogtiisii oo dhammaystiran. sidoo kale halkan waxaad ugu jeedaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee uu soo geliyo Ogaansho. marka qaybtan waxaa ka arkaysaa marka lacagtii uu ka sameeyo. marka haddii aynu horumarno waxaan ku ogaanaynaa haddii aynu horumarno marka inta subscribe u haysto hadda wuxuu haystaa yani inta rankiga uu ku jiro dadka subscribe-kaas haysto wadankii uu iskaga diiwaangeliyay. ugu horreyn hadda wuxuu iskaga diiwaangeliyay wadanka Qatar. marka darajadii uu haystaa YouTubers-ka wadankaas Qatar iska ka diiwaangeliyay darajadii 16aad. sidoo kale people rankings saad u jeedaan wuxuu kagu jiraa darajada 1,102, yani dadka YouTubers-ka caalamka u maleynaya meeshaas. sidoo kale muuqaalada rankiyada muuqaalada uu soo geliyay, yani inta qof ay ku xiran sida caalamka uu mid yahay. sidoo kale halkan waxaan ugu jeednaa 119,571 ranki ayuu ku jiraa. sidoo kale subscribe rankiga, yani dadka ugu subscribe-ka badan wuxuu kaga jiraa darajada 1,693. marka sidoo kale social blade rank, yani website-ka hadda ku jirno ranki ahaan wuxuu ugu jiraa 1,223.79. marka hadda aynu eegno marka qaybtan kale hadda soo dhaweyno. marka total grade, yani grade ahaan waxay siiyeen saad u jeedaan meeshan total grade B ayay siiyeen, waana channel koris badan. halkaas waxaa ku weynaa marka inuu channel-kaani koro. haddaynu imaano marka qaybtiisii lacagta, yani maalintii bishii waxa uu ka qaataa lagu dhahay estimated monthly earning. bishii wuxuu ka qaataa ama ka helaa waa intaan qiyaas
ha u malaynin mid xaqiiqda ah, waayo way ka badan kartaa wayna ka yaraan kartaa. Marka hadda qiyaas ahaan ay qaadataa 596 ilaa 9,500. marka 9,500 ay ka dhigan tahay. Marka qiyaastaas ayuu qaataa lacag ahaan. Sidoo kale estimated yearly, marka lacagtii uu qaato sanadkii website-kiisa YouTube-kiisa uu soo xareeyo waa 7,200 ayay ka bilaabataa ilaa 114,000 ayay u dhaxaysaa, oo intaas ayay u dhaxaysaa. kaliya wayna ka badan kartaa ogow, wayna ka yaraan kartaa. xogtaan ha u qaadanin mid oo lacagtaani dhab ahaan uga sameeyo. sidoo kale halkan waxaan ku ogaanaynaa video views the last 30 days, yani views ahaan 30 maalin ugu dambeeyay wuxuu helay 2,386,000 oo views ayuu helay. marka waa channel aad u korayo channelkiisa, Ilaahay u barkeeyo. marka qaybtan haddana waa soo dhaweynaynaa qaybtan hoose waxaa ku qoran noo soo saaraya yani channelkiisa maalintii wuxuu ka helaa Wednesday oo kale 1k plus oo qaybtan subscribe-ka ugu qoran 1000 subscribe ayuu soo xareeyay oo 630 subscribe ayuu noqotay. views wuxuu helay 165,390. sidoo kale lacagta uu ka sameeyay muuqaalkaas uu soo dhigay markaa oo intaas qafay ku soo biirtay 41 ilaa 662 ayuu dhaxaysaa lagu dhahay. marka lacag fadhisa maaha. sidoo kale qaybtan graph-ka hadaan imaano monthly gained video views for ogaansho. marka sad u jeedaan graph-ka mar walba kor ayuu socdaa oo YouTube-kiisa ama channel-kiisa zaid ayuu kobcaa. marka sidoo kale hadaan fiirino mustaqbalka, yani inta uu soo xareyn karo subscribe hadaynu sii eegno, kaliya waxaana u malaynin inay dhabtay, laakiin waa filasho ama saadaalin. marka 2 bilood kadib yani website-kiisa wuxuu noqon doonaa 670 subscribe 670,930 subscribe ayuu noqon doonaa. marka sidaas ayay ku ogaan kartaa lacagta ay ka sameeyaan dadka YouTubers-ka ama dadka social media caanka ah. fadlan marka muuqaalka haddaad ka heshay like saar. marka si aad ogaatid kaliya waxaad soo galaysaa marka website-kan la yiraahdo social blade. marka website-kan ayaa soo galaysaa, deetana magaca aragtid ayaad ku qoraysaa. halkaas ayuu noogu geeyay muuqaalka aan sameynayna sida loo ogaado internetka dadka caanka ah lacagta ay ka sameeyaan. oo maasantay. marka fadlan subscribe saar haddaad channelkan ku cusub tahay, muuqaalkana like saar haddii aad ka heshay. mahadsanid.